السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalaha kala duwan ee ku xiran barahan bulshada ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkan waa muuqaalkii 11aad. Waxaan ku baranaynaa ID card. ID card waxa la yiraahdaa dadka aan garanaynin waxaan ugu sheegaynaa ID card waa kaarka aqoonsiga oo dadka ay isticmaalaan. Tusaale shaqaalaha dawladda iyo waxyaalaha mid ah kaarka isticmaalaan. Sidoo kale qofka markuu passport Soomaaliya wato waxa jira ID card la socda oo ma garanaysaa oo ku jirto daatada qofkaas xogtiisa ay ku jirto. Sidoo kale waxa jira kaarar business card la yiraahdo oo dadka shirkadaha madaxda ka ama dadka shirkadaha iskale ay isticmaalaan oo lagu talagalay kaar ganacsi ah. Kan laakiin waa kaarka aqoonsiga ayaan xalqadan ku baranaynaa. Way noo damayn doonaan kaararka kale. markii joogno application-ka Canva gudihiisa waxa inoo sahlaanaysa inaan kaar halkan ku diyaarsano. Waxa halkan ku jira templates kala duwan oo aad editable ah oo qoraalada iyo ciwaanada saaran aad bedeli kartid. Hore waxaynu u soo sameynay dokumentiyo badan oo kala duwan. Halkan xalqadan waxaynu ku baranaynaa waa ID card. Marka waxaynu soo keenaynaa maadaama kaararku ay laba option leeyihiin. Option-ka koowaad oo ah horizontal GIF iyo vertical tag. Maana tag kaarku inuu noqdo iyo GIF inuu noqdo. Labadaas option ayaa inta badan caalamka maartay loo sameeyaa kaararka. oo kaararkan loo shaqaalaha iyo waxa loo isticmaalo loo sameeyo. Marka horizontal ayaan ku hormaraynaa marka ugu horeysa. Kaarka horizontalka ah waa kaar GIF ah. Marka inaga halkan waxaan fiirinaynaa kaarkan xogtiisa. U fiirso kaarka qaybtiisa koowaad waxa ku qoran kaar number ba ku qoran, qaybta labaadna waxa ku qoran email, qaybta saddexaad waxa ku qoran address, qaybta afraad waxa ku qoran numberka qofka, qaybta ugu hooseysana waxa ku qoran oo shape-ka madow saaran yahay waxa ku qoran website. halkan waxa ka muuqda gabar. Sawirkan gabadha waxa ku qoran magaceeda iyo title-ka shaqadeeda sida u jeedid. qaybta ugu sareysana waxa ka muuqata logadii iyo company-gii magaciisa meesha lagu qori lahaa. Marka shay walba meeshan yaal waa editable, waa wax la dhexgeli karo oo wax laga bedeli karo, qoraalada la bedeli karo. Okay. sawirada meesha ku jira oo gudaha ku jira oo background-ka waa la bedeli karaa. Shay walba meeshan yaal waa bedeli karaa. Sidoo kale QR code-kaas waa lagu samaysan karaa bahalkan oo application waad ku samaysan kartaa QR code-kan kaarka ee maarta koodkaas qarsoon oo scan-ka lagu soo saaro waa lagu samaysan karaa. Marka qaybta horizontal-ka marka haddii aan rabno inaan kaarka labadiisii dhinac ilaa kaarku wuxuu leeyahay waji front side iyo back side buu leeyahay kaarku. Marka front side waxa ku qoran waa qofka xogtiisa iyo sawirkiisa ka muuqda. qaybta dambana waxa ka muuqan doona loogada iyo ciwaanada yaryar oo company-ga marka qofku uu ka shaqeynayo ayaa ka muuqan doona. Marka sidee ayaan u sameynaynaa qaybta dambe? maadaama hadda qaybtii hore aan haysano kaarkan isla midabkan iyo naqshadan leh ayaan rabnaa inaan qaybtiisa dambe samaysano. Waxaan sameynaynaa laba arrin baan sameyn karnaa. haddii aan computer haysano waxaan koobiyeyn karnaa project-ga dhan ayaa koobiyeyn karnaa oo qayb kale ka sameyn karnaa. qaybta kale marka waxaan sameynaynaa waxaan ka reebaynaa sawirka maxaa la yiraahdaa nambarada qofka meesha ka muuqda. sidoo kale shape-kan cad oo weyn oo qofkan dhex yaalo ayaan bedelaynaa. waxaan ka dhigaynaa madow baan ka dhigaynaa maadaama loogada meel madow taalo ayaan ka dhigaynaa. marka loogada waxaan soo dhigaynaa center-ka project-gaas. marka waa isbedelay maadaama sawirkii laga qaaday numberka qofka emailkiisii wixiisi laga qaaday laakiin magacii company-ga iyo xiriirkii company-ga kaliya halka lagu soo reebay website-ka iyo scan code-ka company-ga maadaama lagu soo reebay waxa isbedelaya meeshan labadii side baa kala maartay wax noqonayaan inuu farqi u dhaxeeyo oo midna waxa ka muuqan doona sawirka qofka iyo ciwaanadiisii midna waxa ka muuqan doona loogada oo center-ka la soo dhigo dhexda la soo dhigo iyo magaca company-ga isna dhinaca ku haya. loogadana waxay noqonaysaa markaas waa la weyneynayaa kadibna hoos wax laga raacinayaa ciwaanka company-ga iyo magaca iyo waxaas email company-ga xiriir company-ga ayaa lagu qorayaa. sidaas ayaad waxa ku samaysan kartaa labadiisa site. tusaale hadda site-kan oo kale marka edit karayso badbadasho ayaa save karaysanaysaa. waad u soo laabanaysaa isla mar labaad waxaad ka qaadaysaa sawirka ciwaanada qaybtooda aad rabin markaas inay ka soo muuqdaan back site-ka inay ka soo muuqdaan aad rabin. sidoo kale shape-kan madow shape-kan cad ayaa bedelaysaa waxa ka bedeli doontaa halkan waxa ka dhigi doontaa madow sidaan oo kale. kadibna center-ka ayaa waxa keenaysaa
markaas loogadii sidaas ayuu labadii kaar labadiisa dhinac ku hesho. laakiin computer haddii aad isticmaalayso software-kan computerka kugu shaqeynaya wuu ka fudud yahay oo si hal click ayaa wax ku koobiyeyn kartaa projectiga oo dhan. marka walaalayaal waxaan ka codsanayaa please waxaan ka codsanayaa muuqaalada noocan ah iyo casharada noocan ah waqti ayaan geliyaa maadaama aan waqti gelin waxaan rabnaa inaa horumarna gaarsiisaan muuqaalada ay dad badan gaaraan. waxaan rabnaa dadka walaalaheena inay ka faa'iideystaan. dadka Soomaaliyeed 75% dhalinyaro ah internet isticmaala horumar sameynaya. marka waxaan rabnaa dadka walaalaheena inay horumar ku gaaraan. walaalayaal please muuqaalkan hadduu ku soo gaaro xujo kugu yahay walaalayaal faafiya. haddii aad TikTok joogtid share iyo other isugu dar si muuqaalkaas dad badan u gaaro. haddaad YouTube joogtidna comment share garee. sidoo kale haddaad Facebook joogtid asagana waxaan ka rajeynayaa inaad share gareyso comment inaad soo bixiso. aad u mahadsantihiin.